bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibayaal halkaani waa warbaahinta qaranka kusoo dhawaada warkeena qodobadan idinkugu soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya diyaaradii uu saarnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee hawada Itoobiya loo diiday oo dalka dib ugu soo laabatay duulaanka xilka looga tuurayo Axmed Madoobe oo bilowday shakhsiga bedelaya oo la ogaaday farmaajo oo beesha mareexaan ku kiciyay Axmed Madoobe iyo xaalad kacsanaan ah oo ka taagan Jubbaland xog xasaasi ah xildhibaano looga yeeray CID-da kadibna iska diiday inay tagaan maxay tahay sababta CID-da looga yeeray iyo imaaraadka oo gasdambeedka ka qoslaya xilli siyaasadda Soomaaliya taagan tahay halkii ay rabeen qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay ayaad saaxiibayaal ku soo daawan doontaan warkeena balse inta aanan u guda gelin fadlan marka koobaad muuqaalka like saar share garay wixii aragtiya ah qabtana qaybta fariinta ayaad noogu reebi kartaan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada si aan idinkugu soo gudbino warka qaranka oo faahfaahsan waxaan marka koobaad daawada ka codsanayaa inaad channelka subscribe dhahdo una furato gambaleelka waana ku mahadsantiin daawadayaasheena oo maalmihii la soo dhaafay si xawli ah u subscribe gareeyay barta aan ku leenahay YouTube-ka haddana haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto kaliya gambaleelka furo marka aad subscribe dhahdo aan ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu madaxweynaha qaranka ku tagay wadanka Djibouti madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu dabcan sameeyay safarro isdaba joog ah oo uu ku tagayo dalalka dariska waxaana safarrada madaxweynaha intooda badan ay yihiin kuwa ay daarnaayeen ujeedadooduna tahay in madaxweynuhu uu soo celiyo cilaaqaadkii kala dhaxeeyay dhammaan dawladaha dariska la ah Soomaaliya sida Kenya, Djibouti oo kamid ahaa dawladaha sida weyn xurgufta siyaasadeed u dhaxmartay intii uu xukunka hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud dabcan dib soo laabashadiisa uu ka yimid wadanka Djibouti waxaa sidoo kale la socotay fariin kale oo ah in madaxweynaha maanta uu qorsheynayay inuu tago wadanka dabcan Itoobiya balse ay u suurtagali weysay markii la sheegay in laga daba shaqeeyay oo dawladda xilligan waqtigeedu uu bilowga yahay lagu bilaabay mucaaradnimo weyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku saabsan hagaajinta xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti wadanka aan walaalahanahay ku joogay maalmihii la soo dhaafay wadankaas ayaa maanta wadanka dib ugu soo laabtay madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa waxaa si diiran ugu soo sagootiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti madaxweynaha wadankaas mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo dabcan isagu xilligan sagootin iyo soo dhaweyn aad iyo aad loo mahadiyay u sameeyay madaxweynaha qaranka madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay dawladda iyo shacabka aynu walaalahanahay ee Djibouti hilka walaalnimo ay noo sameeyeen isagoo oo sheegay inay xilligan uga duuneyd kuwii hore ee loo sameyn jiray martiqaadka heerka sare ah ee loo sameeyay madaxweynaha iyo maamuuska xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu dabcan sameynay maalmihii la soo dhaafay safarro uu ku mareeyay dalalka dariska la ah Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu xaqiijiyay mudnaanta ay siinayeen jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muujinta iyo xoojinta xiriirka dalkeenu la leeyahay dalalka gobolka iyo xaqiijinta Soomaali heshiis ah dariskeedana heshiis la ah taas waxay keentay in madaxweynuhu ay maanta u suurta gasho in uu Djibouti safar aad loo mahdiyay uu kaga yimaado dhanka kale diyaaradda madaxweynaha maanta waxaa la qorsheynayay inay tagto magaalada Addis Ababa laakiin fariin aad iyo aad ay dawladda Soomaaliya ugu qancin oo ka timid dhinaca Addis Ababa ayaa waxaa lagu sheegay in xilligan madaxweynaha Soomaaliya aysan ku habooneyn inuu wadanka Itoobiya tago sababa ay Itoobiya ku sheegtay in wufuud heer caalami ah oo kale ay u imaanayaan talow yaa kaga mudan maanta Itoobiya in Soomaaliya madaxweynahooda uu yimaado iyada oo la ogsoon yahay baahida daran ee Itoobiya maanta u qabto Soomaaliya iyada oo dabcan suuqii ugu weynaa ee qaadka uga imaan jiray dhinaca Itoobiya xataa uusan maanta jiri doonin xilli madaxweynuhu Uhuru Kenyatta madaxweynaha wadanka Kenya la saxiixday heshiis dhinaca qaadka ah ee ay Kenya ku keensanayso Soomaaliya halka Soomaaliyana ay kalluunka badeeda ka soo baxa suuqyada waaweyn ee Itoobiya waa dabcan Kenya ugu iibgeyn doonto horay waxaa xiriirka iyo suuqan uu ugu furnaa dhinaca Itoobiya laakiin waxaa hadda uu soo dhamaaday markii dawladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukunka looga guuleystay dhanka kale haddii aan eegno xilligan waxaa xaalad kacsanaan siyaasadeed ah ay ka taagan tahay Jubbaland iyada oo madaxweynaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu bilowday duulaankii ugu weynaa oo xilka looga tuurayo iyada oo bilaawashada duulaankaas uu ka hoos duugan yahay shakhsiyaad loo maleynayo inay noqon karaan qofka bedelaya Axmed Madoobe madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland
oo dabcan xilligan ku jira hardan siyaasadeed oo aad u adag ayaa la rumaysan yahay inay jiraan mas-uuliyiin dhowr ah oo dabcan qorsheynaya in xilka laga tuuro Axmed Madoobe. dabcan xogaha la helay waxay muujinayaan inay arrintan tahay mid aad u daran. maalmihii dambe guux weyn ayaa ka jiray arrintan oo ah in filla Soomaaliya ay ka go'an tahay in nidaamka ka jira Jubbaland State ay bedesho oo qof cusub madaxweyne loo doorto. taas waxay ka dhigan tahay in duulaan kursiga lagu dhaafinayo Axmed Maxamed Islaam Madoobe uu bilowday durbana aad looga dareemayo Muqdisho iyo Nairobi. agaasimaha hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa hadda ku sugan caasimadda Kenya ee Nairobi, waxaana malafka Jubbaland ee dowladda federaalka Soomaaliya isaga gacanta loo geliyay iyada oo la rumaysan yahay in Axmed Madoobe iyo Mahad Salaad aysan isku fiicneen waayihii dambe. agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Salaad ayaa safarkii Nairobi kaga qayb ahaa Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ah sida la tilmaamay shakhsiga ay filla Soomaaliya la rabto madaxweynaha Jubbaland in loo doorto oo bedeli doona Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. tani waa dabcan arrin aad iyo aad ay dadku si weyn ugu dhoondalolaan. Axmed Madoobe sida weyn u mucaaradi jiray madaxweyne Farmaajo miyaa maanta dowladii cusubayd ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay weerar ku bilowday. Senator Fartaag oo mar ka soo hoos shaqeeyay Axmed Madoobe ayaa ka soo jeeda gobolka Gado, waxaana xusul duubkiisa ku taageeraya madaxtooyada Soomaaliya, balse lama oga in arrintan uu ku qanci doono shirqoolka siyaasadeed ee Jubbaland looga bixinayo Axmed Madoobe. Barre Hiiraale iyo Cabdirashiid Janan ayaa iyaguna Muqdisho ku sugan, kuwaas oo dabcan dadaal badan ugu jira inay iyaguna helaan fursad ballaaran oo ku aadan inay Jubbaland State cusub ay iyaguna ka qayb noqdaan. Axmed Madoobe godkiisii ayaa markan biyo ugu soo galeen. dhanka kale waxaa la leeyahay xukuumaddii hore ee madaxweyne Farmaajo ee nabad iyo nolol ayaa dhankeeda iyaduna wada qorshayaal daba socda kuwa ay filla Soomaaliya la damacsan tahay Axmed Madoobe, waxaana ay iyaguna dhankooda xilligan raadinayaan sidii Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe loogu kicin lahaa dadka shacabka ah ee reer Jubbaland. waxayna arrintu xilligan u muuqataa faanoole fari kama qodna. labada dhinac fallaaro uga yimid Axmed Madoobe ayaa markan ku kiciyay xaaladda siyaasadeed iyada oo aan la ogeyn arrintu meesha ay ku dambeyn doonto. waxaase muuqata in aysan arrintan dab yar shidi doonin. ugu dambeyntii daawadayaasheena qiimaha badanow haddii aan eegno warka ugu dambeeyo, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa looga yeeray xarunta CID-da way diideen in dembigooda la baaro. xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta si cad u diiday inay xaadiraan xarunta dambaarista ee CID-da ee booliiska Garowe. xildhibaanadan ayaa dabcan la doonayay in wax laga weydiiyo qayb ka ahaanshiyaha dabar goyntii geed quwaaxa, iyaguna waxay sheegeen inaysan cidna baari karin. dambi baarista Garowe ayaa mudanayaasha su'aalo weydiin doonta, dabcan doonaysa inay su'aalo weydiiso maantana loo ballansanaa, balse ma aysan tagin xaruntaas. geedkan oo dabcan ah mid aad iyo aad u muhiim ah ayaa maamul goboleedka Jubbaland wuxuu sheegay in xildhibaanadan iyo dad kale looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen guristiisa iyo xaalufin ba'an oo geedkan lagu sameeyay xilli la sheegay in madaxda hadda la sheegay inay geedkan dadka jarayay iyagu soo abaabuleen aysan sheegeen inaysan waxba kala socon, iyaga oo sidoo kale diiday in baaritaano madax bannaan lagu sameeyo. guud ahaan saaxiibayaal warkeennii ayaan intaas ku soo gabagabaynaynaa, balse inta aanan soo gabagabayn daawadayaasheena qiimaha badanow waxaan idin leenahay ilaa iyo gabagabada haddii aad nala joogto si aan kuugu soo gudbino warar degdeg ah, xaqiiqo ah, sidoo kalena xul ah. fadlan kaliya janaalka qaranka TV subscribe dhaho adigoo u furanaya gambaleelka si wararka aan halkaan ugu baahino aad daqiiqad dhegto ugu dhigto. innaguna waxaan ku ballan qaadi doonaa war degdeg ah, xaqiiqo ah oo xiiso leh inaan kuu soo gudbino. mahadsanid.